islaan jecel madxafka iyo alaabaha la dhigo waxay jeclayd inay gurigeeda ka soo buuxiso alaabaha guryaha la dhigo. maalin maalmaha ka mid ah ayaa wiil yar oo ay dhashay wuxuu ka jajabiyey aashuun aad u qurux badan oo lacag badan jooga. aad ayay uga xanaaqday wixii uu sameeyey wiilkeeda, waanay habaartay. waxaanay ku tiri, sidaad u jebisay ilaahay dhagax lafaha kaa jibiha kaa soo kordaayo. ninkeedii oo maqlaya ayaa aad uga xanaaqay, waxaanu xasuusiyey qowlkii Nabi Muhammad sallallahu عليه وسلم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. hooyadii xoogaha yar ayay murugootay maadaama oo ay wiilkeedii habaartay. xadiiskii Nabi Muhammad sallallahu عليه وسلم la soo xusuusiyey. mowqifkii isaga ahaa waa ay iska ilowday, waanay dhaaftay. wiilkiina waxa uu la koray walaalihiisii labada ahaa ee kale. hooyadii aad ayay u ilaalin jirtay, waanay u baqi jirtay. si aanay u ilaalinin wiilasha kale ayay u ilaalin jirtay. markii uu weynaaday ee uu ka baxay jaamacadda, aad iyo aad ayay ugu faraxday. waxaanay go'aansatay inuu shaqo helo. kadib markii uu shaqadii helay, intaa kadib waxay go'aansatay inay u guuriso. waqti yar kadib markii meherku uu dhacay ee guurka la isku diyaarinayay, ayuu wiilku wuxuu u raacay aabihii meel yar oo isaga uu lahaa ee qadiim ahayd si uu dib ugu dhiso. aabihii intii uu la socday wiilkiisa mar ayuu baxay, waxa uuna koray qaybta sare. intii uu fuulayay ayaa waxaa madaxa uga dhacay dhagax, dhulka ayuuna u soo dhacay isagoo qayliyaya. waxaa isku yaacay dadkii markii ay arkeen wiilkii oo dhulka yaalla, kaasoo aan lahayn wax wacyi. waxay ula carareen isbitaalka waxay ka geliyeen qolka gargaarka degdega ah. intaa kadib aabbihi ayaa waxa uu soo wacay hooyadii, waxa uuna u sheegay xaaladda ku dhacday wiilkeeda. iyadoo aanan hadalkii karaynin ayay waxay soo xasuusatay markii ay habaaraysay isagoo yar oo cunug yar ah. aad ayay u murugootay, waanay ka ciqoobaysay wixii ay samaysay. waxaanay timaaday isbitaalka iyadoo soo eegaysa wiilkeeda xaaladda uu ku sugan yahay, aad iyo aadna u murugaysan xaaladda koomada ah ee uu ku jiro. markaa kadib ay ilaahay bariday, waxaanay ilaahay ka bariday in uu ilaahay subxaanahu wa tacaala wiilkeeda u caafimaadiyo. waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ducadeedii maanay joojine. waxa ay samaysay intii ay isbitaalka joogtay 3 maalmood. waa ay soomaneed, salaadna way u istaagaysay, marna waa ay u ducaynaysay wiilkeeda in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u soo celiyo. waxaanay tidhi, maalintaa aan wiilkayga habaaray maalin ka dambaysay dib umaanan habaarin cid kale, waanan ka soo laabtay habaaritaanka dadka. ilaahay wiilkaygii soo celi. iyadoo hurdo ayaa si lama filaana wiilkeedii waxa uu ugu soo naaxay koomadii. hab ayuuna siiyey intuu hooyadii ka kiciyey. kadibna aad iyo aad ayay u faraxday, waxaanay u mahad celisay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ajiibay ducadeeda. celiyey wiilkeedii ugu qaalisanaa wiilasheeda. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.